qof kastoo bini'aadan ah ee dunidana ku nool waxa uu jecel yahay kuna hamiyaa inuu helo cadaalad ka hor wixii uu cuni lahaa ama cabi lahaa. waxaa la sheegaa in dunida dadka haysta cadaaladu ay ka maskax fiican yihiin kana horumar fiican yihiin dadka had iyo goor qalbiga kaga jirto inay ku nool yihiin cadaalad darro. waana halka ay ka bilaabato aasaaska saxda ee nolosha ah. waa sababta loo leeyahay cadaaladu waa aasaaska nolosha. haddii la waayo cadaalad waxaa halkaasi ka dhaca xumaan waliba bini'aadanku soo wajahdo. waxa uu qofka banaystaa wax alla wixii uu doono maadaama uusan jirin cadaalad qabanaysa iyo sharci ka hortagaya. qofka dhibanaha ee dhibaatada loo geystay ama cadaalad darrada ku nool had iyo goor isagana wuxuu caloosha ku hayaa inuu mar uun qofkaasi dhibaatada u geystay ka aargudan doono, gacantiisana uga cilbixi doono. taas ayaa sabab u ah inta badan dunidan dib u hartay iyo dhibaatada ay ku nool yihiin oo annaga ka mid nahay. haddaba nakeen daawade si aan u aadno maxkamadda cadaaladda ee tukaha. waa midkii aan ka barannay aaska oo aan diidannahay inaan inta kale ee noloshiisa ah ka baranno. tuke waa haadka ilaahay u soo diray subxaanahu wa tacaala carruurtii nabiyullaahi aadam calayhi salaam markay ay isdileen si uu u baro qaabka loo asturo meydka bini'aadanka oo ilaa iyo maanta aan ku dhaqanno. daraasad la samaynaya in ka badan 30 sannadood ayaa waxay sheegaysaa in tukuhu uu yahay haadka ugu caqliga badan leh inta duusha. waxa uu leeyahay maxkamad uu isku maamulo, waxa uuna haystaa cadaalad aysan haysanin kuwa kale. haddaba daawade inakeen maanta aan wada aadno maxkamadda tukaha aan ogaano siday wax u xukumaan, cadaaladdeeda iyo inta ay gaarsiisan tahay. sida daraasadu sheegayso, tuke marka uu gala dembi waxa ay ka soo bilaabatay cadaaladiisa booliis. waxaa qolyaha booliiska ay soo qabtaan eedaysanihii dembiga loo haystay. waa 4 ka xoog badan eedaysanaha had iyo goor kana da'yar. waxay u soo kaxeeyaan dhanka maxkamadda. garsooruhu waxa uu ballamiyaa maalinka maxkamaddu la samaynayo. tukaha intiisa kale in maanta maxkamadu jirtoon waxay ku ogaadaan 3 ciy oo aad u xoog badan oo mid ka mida dadkii loo xil saaray inuu ogeysiiskaasi gaarsiiyo ku dhawaaqo. haddii la maqlo 3daasi ciy ee tukuhu sida gaarka u ciyo, waxaa mid waliba oo tukaha uu fahmayaa inay jirto maxkamad, waxa uuna soo xaadiraa goobta ciidu ka yeertay. maxkamaddu waxaa lala eegtaa oo lagu qabtaa had iyo goor meel siman oo barxad ah. waa inay noqotaa meeshu meel ballaaran oo tukuhu isugu imaan karo, maxkamaddana lagu fulin karo. maxkamadda ayaa iminka bilaabanaysa. waxaa la keenaa ninkii eedaysanaha ahaa oo ay dhinacyadu ka jiraan min 2 tuke oo isagana ka da'yar kana xoog badan, marna aysan suuragal ahayn inuu ka baxsado. waxaa la keenaa goobtii ay isugu yimaadeen dhammaan tukayaashii kale. waxaa goobta soo gaara markaasi xaakimadda. garsooraha waa dhedig, waxaana 2 dhinac ka socda 2 tuke oo midkood dhedig yahay midna lab yahay. markii garsooruhu meesha uu soo gaarto ayaa waxaa goobtii laga aqriyaa awaamir la siinayo eedaysanaha. awaamirtaasi 1 waa in uu madaxa raariciyaa, laalaadiyaa, uu hoos u dhigaa. 2 in garbuhu uu dabciyaa, aad isku liidaa. 3 in haba yaraatee uusan wax juuq ah dhihi karin. isla markii isaga oo dulaysan ayuu 3daasi u hoggaansamaa. kadib xeer ilaaliyaha ayaa ku dul aqriya eedaysanaha eedda loo haysto. eeddaasi waxa ay noqon kartaa mid ka mida 3dan sida daraasadu sheegayso. 1 in eedaysanaha maxkamadda hortaagani maanta uu galabsaday dembi ah in uu baabi'iyey, dudumiyey, uu cagta mariyey buul ama guri uu lahaa tuka kale oo uu xeeg sheegtay. 2 in uu weerar ku soo qaaday tuka kale carruurtiisa oo uu ka boobo cuntadii qaarkoodna dhibaato gaarsiiyey. 3 in uu kufsaday oo ku xadgudbay
tuka kale xaaskiisa. Eedaysanahan maanta maxkamadda hor taagane waxa uu yeelan karaa mid ka mid ah eedeymaha aan soo sheegnay. Xaakimaddu markii ay si fiican u dhagaysato dhammaanna la wada maqlo waxa ay gaaraysaa go'aanka kama dambaysta ah oo isla goobtaasi lagu fulinayo. Haddii eedaysanaha lagu soo eedeeyey in uu baabi'iyey buul ama guri uu lahaa tuka kale oo uu ka xoog roonaaday, waxay xaakimaddu isla goobtaasi ku amartaa in uu isla hadda dhaqaaqo buul cusub dhiso sidii si ka wanaagsan, ka waasacsan, ka qurux badanna hadda u sameeyo, iyadoo weliba aan laga haraynin ilaa uu hawshaasi ka dhammeeyo. Haddii eedaynta loo haysta ay tahay in ilmo yaryar uu raashinkii ka boobay, xaakimaddu isla goobtaasi waxay ku xukuntaa in inta hal mar weerar lagu qaado dhammaan baalasha laga tifo wax uu ku dolo u waayo. Waxaa goobta looga tagaa isagoo aan hal baala lahayn, cadowgoo dhan u liita, meel uu ka bixi kara aan lahayn, cagta keliya mooyaane aan cirka aadi karin. Sababtu waxa ay tahay in uu mar waliba soo xusuusto haddii markii baalashiisa u soo baxaan ilmo yar uu arko inuusan ku degdegin. Haddii eedaynta loo haysta eedaysanaha maxkamadda hor taagani ay tahay inuu ku xadgudbay xaas tuka kale ama uu kufsaday, maxkamaddu waxay isla meeshaasi ku xukuntaa in inta weerar lagu qaado sidoo kale madaxa laga garaaco, nafta laga siibo, kadibna la aaso. waxaa goobtaasi lagu fuliyaa isla go'aanka ay xaakimaddu soo saartay. waxaa laga takhalusaa tukihii ka xadgudbay reerkii kale. daawade, markii maanta aad ka qayb gashay maxkamaddii tukaha oo aad aragtay cadaaladda, maxaa kuu soo baxay? ma istiri aaska sida loo sameeyaba isagaan ka barannee, inta noo hartay cadaaladda ah inaan ka baran ayay ahayd. ma kula tahay daawade in cadaaladdu ay tahay waxa keliya ee maanta ruuxu uu ku hormari karo, amnigiisa ku dareemi karo, noloshiisa ku ilaalin karo, hantidiisana ku badbaadin karo? haddii aan cadaalad helnaaho, cirka wuu inoo da'ayaa, dhulkana wuu inoo cagaaranayaa. haddaba daawade, bal kaalay, maadaama aan ka wada qayb galnay dhagaysiga iyo daawashada maxkamaddii tukaha, aan ka wada shaqayno cadaaladda. aan joojinno ku mashquulidda ruuxa kale iyo dhibaatayntiisa. aan joojinno ka shaqaynta waxyaabaha aan naloo dirsan. aan bilowno cadaaladda meesha ugu yar ee annaga aan awoodno inaan ka saxno. aan joojinno inaan nidhaahdo hebelba sidanuu yeelaahe, aniga maxaa iga galay. keliya teenna aan ku cadaalad falno si innagana berrito naloogu cadaalad falo. cadaaladdu waa asaaska nolosha oo aysan jirin haba yaraatee cid ka maaranto.